ehelada Cabdimaalig Muuse Coldoon oo sheegay in lagu dhex dili doono xabsiga dhexdiisa kadib markii qaadigii maxkamaddu uu Coldoon isbuucii la soo dhaafay ku xujeeyay kitaabka Ilaahay. balse Cabdimaalig Muuse Coldoon markii uu xaakimku arkay in kitaabka Ilaahay uu ku xujeeyay Coldoon uu dib u dhigay go'aankii maxkamadda. warar hoose ay eheladiisu heleen ayaa sheegaya maanta in Coldoon lagu dhex dili doono xabsiga dhexdiisa laguna shaabadayn doono inuu u dhintay caabuqa safmarka ee coronavirus. muuqaalo ay soo duubeen eheladiisu ayaanu idin haynaa iyo maalinkii Coldoon uu ku xujeeyay xaakimka kitaabka Ilaahay. qodobadaasi oo dhan ayaynu barnaamijkeena maanta aynu ku qaadaynaa. ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u guda gelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaada la wadaag. soo dhawaada barnaamijka. يدي حالك وميزته راح الوجود والهيادي راح الوجود. ehelada Cabdimaalig Muuse Coldoon oo sheegay in Coldoon lagu dhex dili doono xabsiga dhexdiisa kadib markii qaadiga maxkamaddu Coldoon isbuucii la soo dhaafay ku xujeeyay kitaabka Ilaahay. balse markii xaakimku uu arkay kitaabka Ilaahay uu ku xujeeyay Coldoon inuu dib u dhigay go'aankii maxkamadda. warar hoose ay eheladiisu heleen ayaa sheegay in Coldoon lagu dhex dili doono xabsiga dhexdiisa laguna shaabadayn doono caabuqa safmarka ee coronavirus. muuqaalo ay soo duubeen eheladiisa ayaana idin haynaa oo ay kaga hadleen xaaladooda iyo xogaha sirdoon ee loo gudbiyay ehelkiisa in Coldoon lagu shaabadayn doono inuu u dhintay caabuqa safmarka ee coronavirus. iyadoo sanado uu xabsiga weyn ee Mandheera uu ku xidhan yahay samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa waxaa soo ifaxaya warar sheegay in loo dhaadhicin doono xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. wararka kale soo taraya ayaa sheegaya in dhowr jeer la xidhay iyadoo Somaliland lagu marmarsiyoonaysa arrimaha Soomaaliya. xadhigan ugu dambeeyay ayaa yimi kadib markii Coldoon siro badan oo ku qarsoonaa iskoolka Abaarso uu banaanka keenay iyo weliba gudoomisada iskoolkaasi ee gabadha lagu magacaabo Pastor Isa Joy oo gudoomiye ka ah Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo. kaasoo uu Coldoon uu ku sheegay iskoolkaasi ay ka socoto gaalaysiin iyo fasahaad lagu gaalaysiinayo carruurta dhaqankana looga bedelayo. arrimahaasi oo lid ku ah dhaqanka iyo diinta Islaamka ee suuban. kadib markii uu ka hadlay dhowr jeer muuqaalana uu soo duubay ayaa waxaa dhacday in xabsiga loo taxaabay Cabdimaalig Muuse Coldoon muddo sanad iyo 2 bilood ka hor. Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa muddo qoraalo iyo xogo badan oo aanay shacabka Soomaaliyeed ka ogeyn dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland banaanka keenay. intaasi kadib xukuumadda Somaliland ayaa tiraba dhowr jeer xidhay. dhowaan ayay ahayd markii kiiskiisa uu fadhiistay maxkamadda magaalada Hargeysa halkaasoo si wacan isaga difaacay markaasna wax dambi ah lagu waayay. balse cadaalad darro awgeed jeelka dib loogu celiyay kadib markii qaadiga maxkamadda uu Cabdimaalig Muuse Coldoon uu ku xujeeyay in uu kitaabka Ilaahay uu ku xujeeyo kitaabka Ilaahay uu ku xukumo sida Ilaahay ku ogyahay. balse xaakimkii maxkamaddaasi ayaa markii uu erayo iyo aayado Qur'aan uu daliishaday Coldoon uu dib u dhigay kiiskaasi uuna ku dhici waayay in qof muslim ah oo kitaabka Ilaahay u cuskaday in uu dambi xaq darraa uu dusha ka saaro. xaakimka ayaa kiiskaasi ka laabtay dibna u dhigay dacwadda. haddaba ehelada iyo qaar ka mid ah shacabka magaalada Burco iyo degmada Oog oo ka war helay in la damacsan yahay in Cabdimaalig Muuse Coldoon jeelka lagu dhex dilo iyagoo cadhaysan ayay warbaahinta la hadleen eheladiisa. sidoo kalena waxa ay sheegeen in Coldoon ay dhibaato ugu filan tahay intuu xabsiga ku jiray. ehelada Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa waxa ay sheegeen in haddii lagu dilo Coldoon jeelka ama wax kale loo cuskado sida corona ama xanuun ay u aari doonaan isla markaana uu beel u xidhan yahay. beeshaasi ay ku tilmaameen beesha uu ka soo jeedo madaxweynaha Somaliland. ehelada ayaa waxa ay sheegeen in dadka dilka ugu hajabay ka xukumayay ka xidhay ka jala ku haya yihiin isku reer. tan iyo helidda xogo badan oo Coldoon ka helay iskuulka Abaarso ayaa hay'ado ama shakhsiyaad shisheeye oo ka howlgala gudaha Somaliland oo
sameeyo dhaqan xumo iyo gaalaysiin la waday ayay geed gaaban iyo gid dheerba waxay u fuuleen sidii ay u khaarajin lahaayeen. balse ehelada Coldoon ayaa arrinkaasi is hortaagay iyadoo dhowr jeer la isku dayay in loo gudbiyo xabsi ku yaala gudaha waddankaasi Itoobiya. haddaba maxaa dhacay maalinkii Cabdimaalig Muuse Coldoon isbuucii hore la keenay maxkamadda qaadiyadiina ay dhageysteen? Coldoon ayaa kitaabka Alle ku xujiyay garsooraha maxkamadda. markii la gabagabeeyay dhageysiga dacwadda ka dhanka ah Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa garsooraha Coldoon waxaa la siiyay ereygii ugu dambeeyay, waxaana uu ku yiri maxaad ka codsanaysaa maxkamadda sharafta leh. Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ereygaasi ka faa'iideysanaya ayaa waxa uu yiri inta uu kitaabka Qur'aanka kor u qaaday, waxa aan doonayaa in aad kitaabka Ilaahay ii eegto oo waxa iiga soo baxay igu xukunto oo aanad igu xukumin wax ka sokeeya xukunka kitaabka Alle. sidoo kale Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa garsooraha ku yiri haddii aad i dulmido oo aad xukun cadaalad darro ah dusha iga saarto, Ilaahay waxa aan kaaga baryay inuu Alle kugu salladin axad kale oo iga dambeeya, aniga adiga iyo cid kastoo arrinkayga ku lugta leh. Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa intaasi raaciyay garsoore waxa aan u xidhanahay buu yiri laba qolo oo isbahaystay oo kala ah kuwa diinta Islaamka duulaanku ah iyo kuwa awoodii dowladnimada adeegsanaya oo ah kuwa saaka aniga oo ka tiinadaysan igu ka keenay shabagan birta ee aan ku jiro hadda ee ha ii raacin kuwan. raggan isku haybtaa buu yiri Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa xarigayga ka hadlay oo ku baaqay oo qaarkood ku baaqay in la dilo. waxaa ka mid ahaa raggaasi Cabdiraxmaan Cadami, Maxamed Cabdi Daawud, Maxamed Maxamuud Xiirey, Aadan Siiro walaalkii iyo Axmed Cadare. waa siday hadalka u dhigeen ay cadaaladii haddii ay cadaalad jirto kuwa in la maxkamadeeyo ayay ahayd, taasina ma aysan dhicin ayuu yiri Cabdimaalig Muuse Coldoon oo fursadii loo siiyay maxkamadaasi ka hadlay. waxaa dheer buu yiri Cabdimaalig Muuse Coldoon oo hadalkiisa sii wata maalinkii maxkamadda isbuucii la soo dhaafay, waxa uu yiri garsoore waxaa tahay garsoore la hayba oo maba ay ahayn in kiiskayga lagu dhiibo, madaxweynihii soo xidhana waa idinla hayb, kuwa dilka igu hanjabayna waa idinla hayb, sidaa daraaddeed waxaan kaa rabaa cadaalad. maanta waa if, berrina waa aakhiro, adduunkan waa laga tegayaa. Ilaahay raali geli oo cadaalad samee qaadi. haddii aad Ilaahay raali gelisid maxaa lagu yeeli karaa oo ugu weyn oo aan ahayn in shaqada uun laga joojiyo. garsoore Xasan Mataan Axmed Maxamed oo ah garsooraha ka garnaqaya dacwadda Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon ayaa la sugayaa maalmaha dhow ee soo socda in go'aan uu ka soo saaro dacwadda. balse maalinkaasi waxa uu ka laabtay go'aankaasi waxaanu codsaday in dib xabsiga lagu celiyo ilaa iyo amar dambe. Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon ayaa la xidhay 19 bishii 8 sanadii la soo dhaafay 2021 kadib markii uu ka hadlay shabakadda Abaarso iyo baadariyada gudoomiyaha ka jaamacadaasi Barwaaqo gabadha lagu magacaabo Pastor Joy Iza. haddaba daawade banala yar daawo eheladoodii oo ka hadlaya xogaha sirta ee sirdoonku ay u gudbiyeen oo ah in wiilkooda ama Cabdimaalig Muuse Coldoon lagu dhex dili doono xabsiga magaalada Hargeysa, iyadoo loo cuskanayo bay yidhaahdeen eheladoodu inuu u dhintay caabuqa safmarka ee corona iyo caabuqan oo hadda dad badani oo dhinta oo sabab hoose loo dilo la yidhaahdo waxay u dhinteen corona, waxay u dhinteen xanuunkaasi. haddaba waa kan eheladooda oo ka hadlaya xogihii loo soo gudbiyay sirta ahaa. marka xukuumadda Cabdimaalig ee go'aankiina ka gaadhay anana kaayigu meel buu yaalaa ku talagala ku seexda saa doonaysaa nowga. saaka waxaanu soo kacay Cabdimaalig arrintiisa, waxaan ugu soo kacay dembi laguma haysto, qabiil baa xidhay, waa la maqlayaa, waa raggaa la tirinaya.
waxaanu sugaynaa furaha sharka meel baanu iskaga rignay laakiin waxaan sugaynaa maanta oo soo saarayna xukunka cabdimaalig baanu la sugay meeshaannu dhignay inaannu ka soo saarno iyaannu in kale kaasaannu la sugaynaa waxaanna leenahay somalilan waa maqlaysaa oo arkaysaa annagu baryana mayno maanta qabiilkaa dee xidhay ninka xaqdarrada ku xidhay somalilan waxaan leenahay way aragtaa arrinka cabdimaalig somalilan iyo islaamku aad iyo aad buu uga dheragsan yahay waa arrin loogyahay weeye annana haddaanu nahay reerka uu ka dhashay uu ka soo jeedo horena waanu uga hadalnay muddona waanu ka aamusnay mana aanaan ilaawine bal waxaanu eegaynay dadka inta aan waxoogaynay inay ogaadaan arrinka cabdimaalig sida uu yahay iyo nooca uu yahay kiina waa la ogaadayoo maanta waxay la tahay somalilan way ka dheregsan tahay arrinta cabdimaalig wuxuu sheegay iskuulka abaarso wuxuu sheegay arrin xaqa oo ka jira oo baadareedaaso ay diinta gaalada ay ku faafinayso iskuulkii baa layidhi maxaad u sheegaysa al-jasiira ka hadlaysay xalayso arrinkaa waa wax la wada ogyaho waadaxa wey cabdimaaligtuu ku xidhay horta waa islaamnimaa loo haystaa wax kale looma haysto midda labaadee loo haystaana waa reernimaa loo haystaa waxaanu leenahay haddaanu nahay beesha cabdimaalig ka soo jeeday waxaanu u sheegaynaa reer somalilan oo naga go-an oo gun naga ah waa ninkaa xaqdarrada loo haysto ee reerku u heshiiyey reer baa u heshiiyey sida hore odayaashu usoo sheegeen waa arrin reer adeer kuwii madheero jabsan jiray way joogaan kama dhammaan dhulka cid aanu baryaynaa maanta ma jirto wuu naga soo dhammaaday arrinkaas laakiin haddii mar odayaashii arkeen somalilan aragtay sharcigiina aad aragtaan waxa weeye yaanoo cabdimaalig horaan uga samirnaa iminkana waxa weeye say doonayaan ka yeeray annaguna waxa weeye taayadu waa meel somalilan wali wada joognaad waxa weeye 150 kilomitir badan joognaa meel kuma kala noqon maanta odhan mayno ha la sii daayo iyo ha la saamaxo midna odhan mayno waxa ku soo socdana waa ognahay waxa uu soo marayna waanu ognahay waxaanu leenahay oo keliya haddii la helayo ninkaa cadaalad ha la mariyo ilaa guddoomiyaha maxkamadda sare ilaa garsooraha kiiskiisa haya iyo garsoorayaasha kale ee maxkamadda qaranka iyo looyarada waxaanu ka codsanaynaa ninkaa in cadaalad la mariyo laakiin odhan mayno saanaxa dhammaan waxaan salaamayaa somalilan meelay joogtaba waxaanu somalilan iyo islaamkaba u sheegaynaa arrintaa laga soo hadlay cabdimaalig muuse coldoon oo noqotay boob aan bogsanayn waxaad moodaa marka ugu horraysa inankan in laga baadhayo macdan oo calooshiisa gashay anugu ma garanno waxa laga baadhayo ee laga doondoonayo in badan baanu dul qaadananay waanu arkaynay xumaanta iyo foolxumada meeshaa ka socota waxaananu aragnaa oo ay tahay oo cid waliba og tahay in ninkaa qoys haysto ama reer oo waxa uu ku haystaa uu yahay maxaad iskuulka abaarsee baadareeddii caddaatay ee kiristanka ahayd ee diinta kiristanka fidinaysay maxaad u sheegtay waxaad moodaa wixii caddaaday ee ay dalka uga carartay ee uu cabdimaalig sheegay in ninkaa lagu haysto qoys baana ku haysto oo somalilan ka sheegtay iskuulka abaarso reerkaa la sheegay sacad muuse ayaad moodaa inay ku suntan yihiin oo sheegteen meesha wixii uu sheegayna waa wax caddaadoo la wada ogaya maanta laga dherigsan yahay waxaa kaloo caddaatay in rag isku reera oo raggii waaweynaa ee dalka u talinayay ee siyaasiyiintaha oo qaar xidhal fara badan hayaan in si midaysan ay ninkaa ugu dhegan yihiin waayo somalilan qoys maaha qoys baa ninkaa ku dhegan hadday tahay garsoorayaasha hadday tahay kii soo qabtee taliyaha hadday tahay kuwa ka hadlaya ee dilka ku xukumay hadday tahay madaxweynaha waddanka ugu sarreeyo saw ka hadlay oo sooba xidho u xidhan yahay qoys baa arrinkaa ninkaa mintid ku ah
cid kaloo somalilan oo ayaad uga samaynanaa ama ka saaraynaa ma jirto reerkaasu dee waanu ognahay inay dembigay u haystaan aanay saamaxana odhan mayno cabdimaalig sidaanu hore u sheegnay cid gaara buu xidhay waxa weeyaan reer sacad muuse la yidhaahdo oo iyagu sheegay oo iscaddeeyey inuu iyaga u xidhan yahay buu u xidhan yahay waxaana taa caddaynaysaa rag fara badan oo isku reera baa arrintiisa maxkamadda ka hor dil ku xukumay reerkaa waxaanu leenahay annagoo ah beesha sacad yuunis boqaashiisii iyo waayeelkiisii ninkaasi idinku idin xidhay horena waa idinkii dil ugu xukmay inta hadda idin hadhayna dee dilkiina ha idinku xuknaado waxa weeye waxaad ka heshaan baa leedihin mana joogtaan dee waxa weeyaan hargeysa keliye meel walba wada joognaa meel kasta waynu wada joognaa sidaad hore dilka ugu xukunteen ragga faraha badan uga leenahay maanta cadaalad darraa ku haysataan reer baanay suba haystay weliba sacad muuse la yidhaahdo iyagaana ninkaa haysta maxkamaddana waa la arkayaa xaq waa lagu waayay xaq darro lagu haysto mooyaane xaq lagu haysto inta barakaatu maanta halkan waxaan isugu nimi arrintii cabdimaalig coldoon maadaama uu xidhan yahay xaq darro dulmi cagajuglayn hanjabaad ay ka mid tahay hala dilo rag ay ka mid yihiin cadami ina daawud maxaa la odhan jiray muxuu ahaa si aadan siir walaalkii nin kale magaciisa iminkaan ilaawey cadarre taliyihii soo qabtay madaxweynaha dhammaan waxaan u aragnaa inay isku qoys yihiin maxkamaddana uu iska difaacay wax maraga loo waayey wixii aan maxkamadda aan ku aragnay ay ka mid ahaayeen cadaalad darradii hore 2 sano loogu qaaday isagoo afkiisa isku difaacay isagoo diinta muxuu ahaaye la dheeriyey isagoo wax walba ka hadlay isagoo keenay cadeymo cad marka waxaan dowladda iyo ummadda kaleba u sheegayna ninkaas inuu cadaalad darro ku xidhan yahay oo reer u xidhan yahay laysu bahaystay haddaan imika la soo dayna dee cawaaqib xumo ka imanaysaan filaya arrintaa waxaan doonaynaa in si dhaqsaa arrintiisa wax looga qabto madaxweynuhu ka qabto si dhaqsaa loo soo daya haddii kale dee iyaga idinkaa hawshaas idiinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaanu isugu nimi cabdimaalig muuse coldoon inaanu dhibaatada haysa dareensannahay saan u dhannahay annagoo ah qoyskii cabdimaalig hadda qolada haysataana ay qoys iscadaysay tahay ayaanu u sheegayna oo aanan dowladda warkeeda haynin maanta cabdimaalig iyo ciddii islaamnimo ku xidhanba kuwa u doodayaan hooyooyinkii baanu nahay waxaanu nuu sheegaynaa dee diintii aad adigu ku dhaaratay kitaabkii wallaahi wuu ku hor yaallaa haddaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal annagu halkan waxaan idinka cadaynaynaa dowlad iyo dad iyo somalilan oo dhanba cabdimaalig muuse coldoon dar ilaahay hadduu u dhinto maanta ilaahay dartii hadduu u dhinto 5 nin iyo madaxweynaha in loo haysto qabiilka ka soo jeedaan oon cid kale loo haysan wixii sida cabdimaalig qol loogu xidhay ayaan rag ugu xidhan doonaa qol haddaan degdeg looga jawaabin beesha isbahaysatay heshiisay cabdimaalig haddaanay degdeg uga jawaabin waxa ballana af iyo gacan iyo adinba waxaanu ka gaadhno inaanu ka geysan doono waxaan halkan isugu nimi haddaan nahay qoyskii cabdimaalig inaanu ka hadalno xarigiisa halkan waxaanu ka sheegaynaa cabdimaalig inuu xiran yahay rag isku hayba waa ta koobaad ilaa taliyii soo qabtay ilaa raggii hadlay ilaa karsooraha ibika xukunkiisa haya waa isku reer waxaanu sheegaynaa ibika dumarka iyagii baanu nahay haddii laga hadli waayo oo sheekada maanta dee laga hadli waayo in wuxuu noqon doonto mid xaq darro ah anagu ka hadli mayna dowlad laakiin qabiil baanu ka hadalnay ragga maanta cabdimaalig haystaa waa isku reer marka sacad muuse oo dhanna maaha ee waa rag isku reera soo waxaad garateen maaha halkan maanta dumarkaygi baanu ku taaganahay laakiin hadday ay sheekadu ka soo xumaata raggaygina waa harsan yahay waxaanu sheegaynaa in raggaasi dib loogu noqdo oo beeshu ay dib u eegto oo raggaa dee wada hadal dambe laga soo saaro ninkaana xaq ayuu ku taagan yahay xaqiisa lagu qaado karsoorahan weliba la hadlaynaa karsoore waxaanu ku leenahay cabdimaalig kitaabku ku hor keenay kitaabka alla meel aad u dhaaftaa ma jirto ee qabiilka ku shaqeynay daacadda ka hadal aanu leenahay maanta cadaalad darraa ku haysataan reer baanay suba haystay weliba sacad muuse la yidhaahdo iyagaana ninkaa haysta maxkamaddana waa la arkayaa xaq waa lagu waayay xaq darro lagu haysto mooyaane xaq lagu haysto garsoorkana anigu weliba waxaan odhan lahaa garsoor
ninkaa xadhigiisa iyo xukunkiisa hoos u eeg haddii maanta waxaa maxkamadda lagu keenayo uu galayna dee kitaabkaa ilaahay ku xukun haddii aanu gelina kitaabku isaguba ka hadluu ku yidhi kitaabka iyo eeg garsoore u eegoo kitaabku hadduu xukumana waa sax hadduu xukumi waayana cadaalad u qaad reerka haysta ha u raacin ayaan maanta anigu ku odhan lahaa ummadda reer somalilan oo dhammina way aragtaa maanta cadaalad darrada lagu haysto inankaa reer isku reerina u haysto islaam baanu nahay annaga gaalna xukumi maayo hadalkoo kambaluula waa sidaa madaxweyne ninkanna soo daa ka hadlay gaalada waddankayaga iyo dadkayaga la gaalaynayo ma ogolin waanu dhimanaynaa isaga hortii baanu wallaahi dhimanaynaa sheekh dirir iyo sheekh mustafa hadday tagaan asraa'iil waxay dhigayaan diintay sidaan inanta timo abaarsana waxay dhigaysaa diintay sidatay horta marka hore barco wada lixe garanaysaa ninkan samafalahayo ummadda caawinayay dadka baahan caawinayay artooy beed maayo dadkii ilaahay oo dhan caawinayay dadka u maqnaa eerate ayad kibirka waastaa kibirka waastaa musabbixo korate ilma qomlud hargeysa way joogaan rubba ku sheegay musabbixuna ar barco way joogaan rad islu xalalna calaamadii leeynaar oo tabagalban ku aynaar inaad dulmiga jira ee 20 sano ninkaas ka hadlayay bad been ka soo qaadaysan musabbixo korate dhinaca ka rarnaan maanta waa adduunyo birrina waa aakhiro wuu afduuban yahay reer buu afduuban yahay madaxweynuhu ugu sareeyo iyo inta hoos timaada oo isku wada reer oo isku wada qabiila ayaa u tashatay reer ahaan bay ugu tashadeen qabiil ahaan bay ugu tashadeen waxaanu ka hadlaynaa arrintan cabdimaalig muuse coldoon ku xidhan yahay waxaanu halkan ka cadaynaynaa inuu xaqdarre ku xidhan yahay oo uu xidhan yahay reer layidhaa sacad muuse annagu waanu ognahay inuu reer u xidhan yahay madax iyo midjabana ay isu raaceen waxaanu halkan aan kaga hadlanaa xadhigga cabdimaalig muuse coldoon ninkaas samafalaha inuu xadhiggiisu yahay sharci darro oo ummadda ilaahay la yaabtay ninkaa shabagga ku jiray ee aan qof dilin ee aan hanti dawladeed dhicin ee kelmadda yidhi kelmadda xaqaa yidhi weliba ummadda waxaad kula dhex jirtay madaxweyne waanu kaa xishoonaynaa ayadda kaa baqmayne haddaanad ka daynin oo aanaad maxbuuskaa soo dayn ninkaa sharci darrada ku xidhan maalin kalaad garan doontaa ayaannu leennahay waxaannu ka hadlaynaa xadhigga cabdimaalig muuse coldoon wuxuu ku xidhan yahay cadaalad darro xaqdarruu ku xidhan yahay sheekh dirir iyo sheekh mustafa hadday tagaan asraa'iil waxay dhigayaan diintay sidaan inanta timo abaarsana waxay dhigaysaa diintay sidatay wax cadaalad darraa muu sheegin wax xaqa buu sheegay oo dalka iyo dad kale ku xun adna qof islaamaad oo shahaadilaya iska soo daabaan ku leeyahay ana horta waxaa dulmiga in badan baan arkaynay dawladda ilaahay oo dhan baan arkaysanaa muuse buuxow kooradii aslan baa la yidhi lixla dhintay musliin aslan ma wada lixle garanaysa horta marka hore barco wada lixle garanaysa ninkan samafalahayo ummadda caawinayay dadka baahan caawinayay artooy beed maayo dadkii ilaahay oo dhan caawinayay dadka u maqnaa eerate ayad kibirka waastaa musabbixo korate ilma qomlud hargeysa way joogaan rubba ku sheegay musabbixuna ar barco way joogaan rad islu xalalna calaamadii leeynaar oo tabagalban ku aynaar inaad dulmiga jira ee 20 sano ninkaas ka hadlayay bad been ka soo qaadaysan musabbixo korate aniga hadalkaygu qolkaagu ku imanaya niyo amba afka meermeri ama meesha doonta meermeriyo aslan baa la yidhi waa wada lixle afkan meermerina annaguna niyatan doonaysa musabbixo kowladii koriyo hoos baan ugula hadlay inaad ninka islaamka ee ilaahay abuurtay inaad dulmiga ku qaadanaare inaad cadaalad samee ta kale ku sheegna cadamay hayna waxa weeyaan hablihii meesha dhiganay inaad siday lahaayeen waan arkayni siday lahaayeen inaad afka siday lahaayeen waan arkayni raggana inaad calaamadii leyna waa sulxaninaad sida naagaa muuse coldoon inuu helo cadaalad diinta islaamkana uma ogolin dee inaan qof gaali wax ka sheego rag iyo dumar ma ogolin ninkaa wariye ahaa ee madaxweynuhu xidhay wuu noo yeedhay madaxweyne badan buu noo yeedhay qoloc buu noogu yeedhay ha ka socdo arrimaha kadib wax ugu tanaasulo ninkaa wariyaana si degdeg ah u soo daayo muuse coldoon wuxuu hadlay diinta islaamka u hadlay waxaanu mar hadduu diinta islaamka u hadlay oo aanu dembi kale diinta islaamka aynu haysanay uu u hadlay haddaanu nahay dadka ku nool burco in cabdimaalig muuse coldoon lagu haysto dad qabiilah isku qabiili inay haystaan nimanka nuurtaani
waxaan ku uri inta haysata cadami waa la ogyahay nimankaasi inay yihiin qabiili ahaan ay ku haystaan waxa uu u afduuban yahay reer buu afduuban yahay madaxweynuhu ugu sareeyo iyo inta hoos timaada oo isku wada reer oo isku wada qabiila ayaa u tashatay reer ahaan bay ugu tashadeen qabiil ahaan bay ugu tashadeen intaan arrintu faraa ka bixin oo intaan dagaal iyo quraani gaadhin arrintiisa gudagal soo daa horta madaxweynuhu ha ogaado qoladan abaasale iyo iskuulkan uu wax ka sheegay iyo cabdimaalig muuse coldoon inuu labadaba dhex u yahay madaxweynahoodii yahay madaxweyne dhinaca ka rarnaan maanta waa adduunyo berrina waa aakhiro berri tolo wuxuu dhigayaan ku odhan madaxweyne cabdimaaligna xaqdarra ayuu ku xidhan yahay warar isi soo taraya ayaa sheegaya in dil loogu hanjabay dee anuu ninkan inuu nolol kaga soo baxayaba uma arka